jabka ama jababka qaybo badan oo ka mid waa laga hortegi karaa. Tusaale, waxa ugu badan ee dadka dhalinyarada jabka u keena waa shilalka. Haddii waddooyinkii si nabada loo maro, si nabada loo gooyo, speedkii la yareeyo, taxadaraadkii la sameeyo, qofkaasoo telefonkiisa ku mashquulsaneen oo waddadii geeskeeda ama markuu goynayo si nabada ku maro, shilal badan oo laga hortegi karo, shilal badan oo dhici lahaa ayaa laga hortegi lahaa. Dadka waayeelka usbuucii hadda dhowr qofood oo waayeela oo aan qalliin u sameeyey way wada dhaceen. Waxay ku dhacayaan balansigooda xun, araggooda xun, dhulkiyaa qoyan, waxyaabo qaarkood marka qadarta mar walba lagama hortegi karo, laakiin waxaa jira waxyaabo la samayn karo. Maxaa la samayn karaa? Qofkan waayeelka ah balansigiisa iyo araggiisa fiicneen, koobkan biyaha ama shaaha meesha ku daatay in laga tirtiro. Haddii kale toodhoodii dhulkii oo mutuleele, haddii qofkii uu ku sabiibaxdo si fudud uu ku jabaa. Waxaa muhiim ah qofkan haddii uu daawooyin qaadanayo wareer keenayo in la saacido. Haddii la ogyahay markuu subaxii soo kaco inuu warwareeri karo, marka koowaad uu istaago in la dhaho hooyo marka hore soo fadhiiso, hore ha ka istaagin, waxay markaa fadhiisatid alxamdulillahi alladii axyaana iyo adkaartaada kale akhrisatid tartiib u istaag. haddii aad isleedahay warwareer aad dareemaysid ilmaha kici qofku caawiyo waco tilmaamo noocaas oo kale u baahan yihiin. labo, haddii balansigooda uusan fiicnayn ay dhacdhacayaan waxay u baahan yihiin waxay kaalmaystaan ama boqorad ha ahaato ama musqusha meel in loogu dhejiyo ha ahaato ama derbi loogu dhis ha noqoto, tilmaamo noocaas u baahan yihiin. Marka wax kasta oo laga hortegi karo waxaa fiican in laga hortago. Jabka dadka waayeelada ah wuxuu noqonayaa public health problem. caafimaadka bulshada ama public health-gana waxyaabaha ugu fiican ama ugu badan ee laga hadlo waxa waaye ka hortag. Marka ka hortagaas xoogga aan saarno. waxyaabaha kale muhiima dadkan ay sida fudud u jabayaan waxaa ka mid ah lafahooda ayaa jilicsan. waxaan ku talinaa qof kasta oo dumare oo dhiiga caadada ka go'ay ama 40 ha uga go'o ama 50 ha uga go'o waxay u baahan tahay daawooyin supplements oo lafahoodii awoodoodii saacidaya. waxyaabaha kale oo dadka saacidi kara waxaa ka mid ah exercise-ka ama socod fudud ha noqdo ama noocyo kale oo exercise ah ee murqihii iyo lafihiiba u fiican ha noqdo. dhammaan talooyinkaas oo la isku geeyay waxay muhiim u yihiin yareynta khatartii jabka. midda ugu dambeysa, dadka waayeelada markii ay jabaan haddiiba jabkaas uu yahay nooc qalliin u baahan waxaa fiican qofka in la qalo sabab u diideyso qalliinka hadduusan jirin. maxaa yeelay 30 biri 60 biri oo sariir saarnaado, boog sariireed ku dhaco oo fureen ku dhacdo, infekshanada feeraha ku dhacaan, dhiigga xinjiroobo, khataradaas oo dhan waxaa lagu yareyn karaa in xilli hore qalliinkii loo sameeyo, xilli hore bukaankii physiotherapy rehabilitation loo sameeyo, xilli hore bukaankii uu ku noqdo dhaawiciisii ka hor. dadka sidoo kaleeta dhaqan waxay leeyihiin oo iyadan aan baraarujinaa hebel waa jaban yahay ha laga leexdo sariir ha saarnaado. socodka waa nolol. qofka inuu socdo uu dhaqdhaqaaqo waa caafimaad. qofka marka inta physiotherapy murqihii waxay ku dhismayaan, socodka ku soo noqonaa, balansiga ku soo noqonaa, jirkii active ku noqonaa, hurdadii ku imaanee qofka inuu dhaqdhaqaaqo. talooyinkaasna bulshada waxay ku baahan yihiin inay ku baraarugaan. arrinta cuntada, qofka hadduusan sokor, dhiig kar iyo tilmaamo kale uusan qabin, Soomaalida waxay ku leeyihiin macsar lama sii karo, qof qalan biyo lama sii karo. qabiil walba dhaqan uu leeyahay. dadka mudug ka imaaday, dadka hiiraan ka imaaday, dadka ka imaaday waqooyiga muqdisho iyo gobollada kale ee Soomaaliya ka degaan qolaba wax extreme ay aaminsan yihiin. waxba kama jiraan wax ka reeban oo qofkaas la dhahayo biyo ma cabi karo, macsaro ma cabi karo, kan ma yeeli karo ma jirto. maxaa xalay dadkaasiita waxay u baahan yihiin tilmaamo specific oo u gooniya haddii ay rabaan dhakhtarkoodii qalay inay weydiiyaan. tusaale cholesterol uu qabaa, tusaale sokor uu qabaa, tusaale dhiig kar uu qabaa. dabcan cuntooyinkii waa loo maxaa la dhahaa adjust gareynaa, laakiin waa la qalay ee moos yaa la siin, ee macsaro yaa la siin, ee biyo yaa la siin, ee kan yaa la siin, ee digir yaa la siin. meeshaa farfashmida igu cajiibsaneed waxay hilibaa laga ilaaliyay maalin dhaweeyta qof aan qalin. oo maxaa dhacay hilibkan ay cunto laftii oo kale dhexgalaa. cilmiga waxaan la yaabay ah hilibkan intuu soo baxo calooshii iyo meelihii kale soo marin oo aan la shiidin xididadii soo dhex maraayo kadibna imaanaya meeshaan. marka maxay ahayd maamaadii caado horeeto cadaab alle leedahay. caado horeeto iyo dhaqan hore oo khaldan caafimaad darruu leeyahay aan dhihi lahaa. marka bulshada ha baraarugaan. asalaamu calaykum.